الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي شن إلى لباتنات إيه كتاب كان تحفة المودود بأحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله. هل كان ولي وحن كجرنا خلاصته أما جبدي كتابك ولعل إني نقطه عجلتي قدام بيسنا صورة قلوي إن شاء الله تعالى. waxaa ka mid ah sheekhu soo qaaday oo soo marnay jawaaz inay bannaan tahay in gabdhaha dhagahooda la dalooliyo si ziinadii iyo quruxdii iyo daabkii wax la isku qurxin loogu xidho. waxaase isagu karaahiya wiilasha, inkastoo masaladan in dhagaha lagu xidho dahabka isaguna waa masale kale oo fiqi ah oo dood badan ku jirto imaamu albani uu ka doodayo, laakiin hadda u banbixi mayno khilaafka isaga karaahiyat lil awlaad. laakiin wiilasha isaga waa karaahiya, mana loo baahno in dhagaha loo dalooliyo. ayib kaadida wiilka hala rusheeyaa la yidhi, kaadida gabadhana hala dhaqo ayaa la yidhi. culimada qaarna waxay dhaheen labadaba waa isku mide, hala rusheeyo uun mashaqa ku jirta iyo dhibaato. laakiin asxaabta iyo taabiciintu iyo dee xadiidku siduu ku cadaaba, saxaabtuna ay ku ijmaaceen, taabiciintu ay ku raaceen, waa in wiilkana kaadidiisa la rusheeyo, gabadhana kaadideeda la dhaqo. asbaabtii badnayd ee culimadu ay sheegeen oo ay kamid tahay inuu wiilka kaadidiisu ay boodayso oy duulayso. wiilku halkan oo kale isagoo jiifo meel fog kaadida ku tuuraya, marka ma dhulkii oo dhan baa la dhaqi karaa intii oo kale saas yidhi. gabadhu laakiin hal meel unba iyadu asiibaysaayo, marka taasna way sahlan tahay bay leeyihiin. marka laakiin waxyaabihii tirada badnaa oo sheegeen waa inaga hore usoo sheegnay, waxaa ka raajixa oo sax ah, rasuulkaa yidhi sala allahu calay wasalam wiilkana hala rusheeyo, gabadhana hala dhaqo. xigmad kale oo intaa ka badan oo inagu aan gelaynay oon ka garan karnay ma jiro in la yidhahdaa ka haboon. ilmaha yar ee tifliga ah candhuuftiisa iyo dhareerkiisa iyo mantagiisuba waa daahir insha allahu tacaala lilmashaqa. mashaqa marka sida dhibka la fi ibnu qayim sidaasuu iyuu leeyahay, wakadalika sheekh alalbanina sidaasuu doortay qayga oo ah hunqaacada. laakiin akharu lculamaa waa inay khilaafka xagga kusoo guurin. culimo badan waxay qabaan inuu qaygu ama ah hunqaacadu mantaga waxaa loo yaqaanaa inuusan daahir ahayn. qolyaha qaar way kala saarayaan hadduu isbedelo iyo hadduu dee markaa un wixii daaca mantaga la odhan jiray ilmuhu markaa soo celiyana inay kala duwan tahay. ayib ilmaha yar in la xambaari karo salaada dhax markaad ku jirto adoon ogeyn xaaladiisa, ma nijaasuu leeyahay, dheebarka ma waxbaa ugu jira, ma ugu jiro dharkiisu, ma waxaasoo dhan marka adoon ogeyn inaad qaadi karto wax dhibaata kuma sugan. rasuulkaa qaaday sala allahu calay wasalam. umaama gabadhiisu dhashayna waa kii qaaday, xasan iyo xuseinna waa qaaday. ilmaha in la shumiyo, rasuulkaa shumiyey sala allahu calayhi waaalih wasalam. in la edbiyo oo maaragtay la tacliimiyo oo wax la baro oo cadaalad dhexdooda loo sameeyo waa arrin iyaduna wanaagsan insha allahu tacaala. fawaa'id fi tarbiya waa inaga kasoo hadalay. alridaaca in ilmaha la nuujiyo, nuujinta dabiiciga ah oo naaska intii suuragal ah in la nuujiyo 2 sano intuu ilmuhu nuugi karo waa arrin aad iyo aad u fiican. wax u dhigmaana ma jiro, dhakhaatiirtuna sidaasay kuu sheegayaan. tadaruj markaad cunto rabto inaad ilmaha ku bilowdo, si kiskis ah ugu bilow, weliba cuntooyinka fudud adigoo u dooranaya. ilmaha hadduu ooyo ama uu qayliyo, oohintaas waxba ha argagixin, u daabaa laleeyahay, ha ooyo. haddaad tiraahdo markuu ooyaba waan qaadayaa, sidaasuu ka caado dhigan. dhowaana waxaa dhici inuu wax walba is yidhaahdo ku samayso, waraqatu daqti haysto uu kugu qasba weeye inuu mar walba kuu ooyo. ilmaha haddii uu ilmaha yar waxaa laga ilaaliyaa waxa argagixiya, waxyaabaha lagu qayliyo, wax agtiisa lagu dhufto, hal mar uu soo boodo. arrimahaasi hadday kusoo noqnoqdaan waxay keeni karaa inuu ilmuhu daakiradiisa iyo maskaxdiisa ku samaysanto, waana hawl adag weeyaan. ilmaha looma diido waxyaabo badan, haddii hunqaaca ay ka imaanayso, haddii hurda uu rabo, hadduu cunto rabo, kaadi hadduu rabo, hindhisa hadduu rabo, laguma celiyo umuuraha noocaas. masale kale oo xagga ayna u banbixin laakiin si kooban aan u marayno, iyadana khilaaf waxay geliyeen oo weliba qolyihii hore dee aan ay ahayd in haweeneydu marka ilmaha nuujinayso ma loo tegi karaa, yani xilliga labada qof ma jimaac ma dhici karaa. waa masale iyaduna sax oon wax dhibaato a lahayn, hooyo ilma nuujinaysa wax dhiba aan ku jirin weeye. insha allahu tacaala waxaan kusoo gebagabaynaynaa cajalada soo socota. wallahu aclam.